ciidamada qalabka sida ay xoreynta ogaadeenaya qaybta halgan ayaa isugu timid kulan ballaaran oo ay kaga hadlayeen arrimo badan oo khuseeya halganka ogaadeenaya kulankaas oo bilowday 2 bishan May ee aynu ku jirro lana soo gabagabeeyay maalintii shalayta ahayd ayaa waxaa hogaaminayay gudoomiyaha xarunta dhexe ee Jawxo ahana gudoomiyaha arrimaha cadaaladda iyo diinta ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya nafti hore Sulub Cabdi Ahmed iyo xildhibaan nafti hore Ahmed Ciilmooge Ahmed Aroori iyo waliba saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee xoreynta ogaadeenaya wariyaha raadiyo xorriye ee xarunta dhexe ee Jawxo nafti hore rasaas cilmi tawiil oo kulankaasi goobjoog ka ahaa ayaa warbixinta kulankaasi iyo mid guudba khadka telefoonka nagu siiyay isagoo ku sugan xarunta dhexe ee Jawxo ee wadankaasi ogaadeenaya qaybta halgan ee ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenaya ayaa waxa ay isugu timid kulan ballaaran oo looga hadlayay dhinacyo kala duwan oo dhammaanba khuseeya umuuraha halganka gobonimo doonka ah ee ka socda dhulka ogaadeenaya kulankan oo bilowday 2 bishan aan ku jirro ee May sanadkan 2010 dhamaadayna isla bishan May 6deedii waxaa hogaaminayay gudoomiyaha xarunta dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya nafti hore Sulub Cabdi Ahmed ahna hogaanka cadaaladda iyo arrimaha diinta iyo mas'uuliyiinta ciidanka qaybta halgan ee wadaniga xoreynta ogaadeenaya isu-imaatikan ayaa looga gol lahaa in lagu qiimeeyo geedi socodka howlaha halganka gaar ahaan howlgalladii qaybta halgan oo ka mid ah qaybaha ciidamada wadaniga xoreynta ogaadeenaya shirar kala duwan oo ay kulankan dhexdiisa ku yeesheen hogaamiyayaasha ciidamada iyo gudoomiyaha xarunta dhexe ee Jawxo nafti hore Sulub Cabdi Ahmed ayaa lagu gorfeeyay qodobo door ah oo la xiriira halganka shacbiga ah ee ay horseedka ka tahay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya waxaa diiradda si gaar ah loo saaray si ballaaranna la isla jeexjeexay xaaladda halganka dibad iyo gudaba halka ay marayso howlgallada ciidamada jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya xaaladda guud ee uu dadka iyo dalka ogaadeenaya haatan ku sugan yahay halka ay marayso xaaladda gumaysiga dhinacyo badan oo ka mid ah iyo weliba qorshayaashiisa dhagaraysan geedi socodka siyaasadeed ee geeska Afrika iyo waxyaabaha saameynta ku leh halganka xaqa ah ee uu shacbiga Soomaalida ogaadeenaya ugu jiro aayo ka kashigiisa kulankan oo si toos ah u soconayay muddo 5 maalmood ah lana soo gabagabeeyay 6 bishan May ayaa waxaa ciidamadii madasha isugu yimid khudbado dhiiga dhaqaajiyay si isdaba joog ah ugu soo jeediyay gudoomiyaha xarunta dhexe ee Jawxo nafti hore Sulub Cabdi Ahmed iyo nafti hore Ahmed Ciilmooge Ahmed Aroori oo isna ka mid ah mas'uuliyiinta golaha dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya sidoo kale waxaa kulankan wacdi dheer oo diini ah goobtaasi ka soo jeediyay Sheekh Axmed Xuseen oo ka mid ah culimada arrimaha garsoorka iyo cadaaladda ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya dhammaan khudbadahaasi waxa ay xog dhab ah ka bixinayeen xaaladda halganka midda dalka iyo dadka ogaadeenaya xaaladda gumaysiga iyo weliba arrimaha caalamiga ah dhammaan shirarkii kala duwanaa iyo khudbadihii ay mas'uuliyiintu halkaasi uga jeediyeen naftooburayaasha ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenaya kadib waxaa ka soo baxay go'aano ka kooban qodobo door ah oo dardar gelinaya howlaha halganka gobonimo doonka waxaana qodobadaasi ka mid ahaa in loo diyaar garoobo sidii dabada la isooga raacin lahaa gumaysiga Ethiopia oo haatan maraya xaalad gabagaba ah in ay ciidamada jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo shacbigooduba gacmaha isu qabsadaan sidii ay u beenin lahaayeen riyada gumaysiga Ethiopia ee ah in uu cimrigiisa sii dheeraysto in ay shacbiga Soomaalida ogaadeenaya dibad iyo gudaba u kacaan siday u xoojin lahaayeen halganka xaqa ah ee ay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya hormuudka ka tahay in ay si wadajir ah uga hortagaan shirqoolada cadowga iyo doorasho ku sheegta lagu wado in ay bishan 23keeda ka dhacdo dalka Ethiopia in ay shacbiga Soomaalida ogaadeenaya dhinac isooga ururiyaan goobaha uu cadowgu kaga sugan yahay magaalooyinka ogaadeenaya si ayna waxyeelo uga soo gaarin howlgallada ay ciidamada wadaniga xoreynta ogaadeenaya ku burburinayaan goobaha cadowgaasi ugu dambeyntii waxaa bulshada caalamka iyo
dowladaha waaweyn ee nabadda iyo xorriyaddaba jecel loogu baaqayaa in ay si degdeg ah fariidgelin toos ah ugu soo sameeyaan xaaladda qadiyadda Ogaadeniya. kulankan waxaa lagu cambaareeyey qorshayaasha dilka, kufsiga, dhaca, firdilka iyo xilxilka isugu jira ee uu taliska Addis Ababa ku hayo shacbiga madaalaha ah ee Soomaalida Ogaadeniya. 20 bishii koowaad ee sanadkan 2010 muddo 4 bilood uun ka hor ah ayay ahayd kulankii midkan ka horreeyey ee ay qaybta halgan isugu timid sidan oo kale xilligaas oo ahayd xilli jilaal madaxii ah. qaybaha kala duwan ee ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa waxay leeyihiin kulamo kala nooc ah oo marar fara badan ay isugu yimaadaan si ay u qiimeeyaan hawlihii u qabsoomay isla markaana ay ugu qaataan qorshayaal hor leh oo ay ku dararinayaan hawlaha halgankooda. xilliyada ay isu imaanayaan ciidamada wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa waxaa ku muuqanaysa sida ay u egyihiin naftoolayaasha ciidanka Ogaadeniya, taasoo aad si dhib yar uga fahmi karto astaanta dhabta ah ee halganka gobonimo doon. waxaad sidoo kale muuqaalka naftoolayaasha ka dheehan kartaa sharafta ay kuwan yihiin iyo sida ay uga turjumayaan shacbiga ay ka dhasheen ee Soomaalida Ogaadeniya. dhinaca kale guud ahaan dhulka Ogaadeniya ayaa xilligan lagaga jiraa bartankii gudaas oo ay roobashiisu ku siman yihiin ciidda Ogaadeniya, waxayna mar aan shacbiga wax ka weydiiyey ii sheegeen in ay muddo ayna soo marin roobabkan oo kale, ilaahayna uga mahadcelinayaan barwaaqada uu siiyey. gebi ahaanba shucuubta kala duwan ee Itoobiya ku nool ee cadaadiska wayaanaha ku hoos jirta iyo dhammaan bulshada caalamka ayaa wadnaha farta ku haysa waxa ay dhali doonto doorashadani. dhammaan isku soo xoogiyo kulankan ayaa u dhacay sidii loogu talagalay kuna dhamaaday farxad iyo guul ballaaran, wuxuuna kulankani ku soo beegmay xilli ay dhammaadeen howlgallo waaweyn oo ay fuliyeen ciidamada wadaniga xoreynta Ogaadeniya sida howlgalkii Dharaar iyo midkii Ragaad oo kasii horreeyay kan kadaata guulo waaweyna laga soo hoyey. rasaas cilmi, Radio Xorriyo, xarunta dhexe Ogaadeniya. jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa war saxaafadeed soo saartay ay ku cadeynayso mowqifkeeda ku aadan dacaayadaha Itoobiya baryahan dambe wado. Jawxo ayaa bayaankeeda ku cadeysay inuu sii socon doono halganka hubeysan ilaa ay Itoobiya ka aqoonsanayso xaqa ay ka tashi ee shacabka Ogaadeniya. waxaana bayaankaas inoo soo koobaya Maxamuud Sheekh. nidaamka gumaysi ee Itoobiya ka arrimaya wuxuu maalmihii tagay aad isugu dhabarjabiyay inuu ka jeediyo caalamka guuldaradii ciidankiisa ka soo gaadhay dagaalada ay la galeen ciidanka xoreynta Ogaadeniya, isagoo doonaya inuu abuuro dareen aan jirin oo ah inuu guulo la taaban kara ka gaadhay dalka Ogaadeniya. dacaayadaha majar habaabinta ee nidaamka Itoobiya wada waxaa ka mid ah inuu yidhaahdo waxaa ku shiraya Ogaadeniya madaxdii ururkii baaba'ay ee Al-Ittixaad iyo canaasiir ka socota ururka Awanalef oo sidoo hadalka u dhigay, kadibna ay labada kooxood iyo dowladda Itoobiya ay wada hadal isugu iman doonaan si loogu fududeeyo inay ka qayb galaan doorashada ka dhici doonta dalka Itoobiya. xukuumadda Itoobiya ee Meles Zenawi waxaa ku kalifay arrimahan oo idil waa inay sharci u hesho doorasho beeneedka, iyadoo ku andacoonaysa in ay dadweynaha Ogaadeniya iyo qaybaha kale dalka Itoobiya ay ka wada qayb qaateen doorashada. asbaabahan ayaa ku kalifay inay Itoobiya si waali ah uga raadiso meel walba ashkhaas ay ku tilmaamtay in ay yihiin Awanalef oo doorashada ka qayb gala. aragtidan gaaban waxay sii xoojin dagaalada ka socda geeska Afrika ayaa lagu yidhi bayaanka ay soo saartay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya. si kastaba Itoobiya been iyo jahwareer ha u samayso, xaqiiqda dhabta waxa weeye in Ogaadeniya ay tahay goob dagaal oo aan xasiloonayn.
etoobiyana waxay ka wadaa Ogaadeniya xadgudubyo habaysan oo xuquuqda aadamaha ee shacbiga Ogaadeniya wax u dhimaya. sidaa daraaddeed dadweynaha Ogaadeniya haba yaraatee wax dan ah uguma jirto inay ka qayb galaan doorasho beeneedka. xukuumadda gumaysiga Itoobiya ayaa sheegata in 2.7 milyan oo qof ay doorashada isku diiwaan geliyeen gobolka Ogaadeniya, iyadoo Itoobiya ay ka dhigtay tirada guud ee dadweynaha Ogaadeniya 4 milyan, taasoo xaqiiqada ka fog. iyo soo ururinta danaystayaasha loo geliyey shaadhka AWNLF ama urur hagaasay. waa waxaan miro dhal ahayn oo aan mujtamaca caalamka ka gadmayn, ayaa lagu yidhi bayaanka ay soo saartay Jawxo. inkastoo ay jamhadda AWNLF aaminsan tahay in lagu soo afjaro qadiyadda Ogaadeniya wadahadal nabadeed oo ay hab caalami ah dhexdhexaadinayaan, taasoo horseedaysa cadaalad iyo nabad waarta inay ka dhacdo Ogaadeniya iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika.